dadka garoonka soo galay dhaqaale badan iyo lacag badan soo galay marka madax laga tiriyo laakiin markii laga fiiriyo dadka transactionka bixiyay ama sameeyay horta dhaqaalaha sanadkan wuxuu ahaa waxaan ugu talagalnay waxay ahayd in lagu horumariyo sports qeybihiisa kala duwan gaar ahaan kubadda cagta si gaarna waxaan uga fikiraynay initiative-kaas aan soo kordhinay ama fikradda sanabuurka ahayd in qarankeenu isku filnaansho gaaro dhaqaalaha markaan usoo laabto sanadkan saad ogtihiin garoonku ma suuragali lahayn suuragalna ma ahayn in lagu qabto tartanka intaas leeg baxadaas taageerada intaas leegna in lagu kala manage gareeyo waxaan u baahanay intaanan tartanka la qaban ka hor annagoo rabnay in meeshii lagu qaban jiray garoonkii inuu aada u yaraa aaminsaneen bulshada inay sports jecel yihiin in sanadkan meel weyn la aado isbartibada sanaada aniga guddoomiyaha markaan ka tashanayna abaabulka ugu horeey waxa uu guddoomiyaha iyo tiimka ii soo jeediyeen suuragal inayn ahayn sababtoo meeshaas ay iska furan tahay taageeradu ay mar qura usoo daadan karaan garoonka iyo ay dhibaateyn karaan hadba referiga ama garsoorihii kasoo aragti duwanaada waxa ay rabaan waxaan markaa ku qasbanaanay inaan raadino wasaarad ahaan sida aan u kaafargareyn lahayd wasaaraddu sida ay sheegtay sucaadaheed maan haysanin miisaaniyad ama budget loogu talagalay inaan waxyaalahaas ku maareyno waxaan ku qasbanaan haddana gacmaha inaan isa saaranana ma noo muuqan inaan inta aan marka dawarsan lahayn kaalmo caalami ama aan sugi lahayn waqti ku bixin lahayn waxaan doorbidnay inaan ganacsatada soomaaliyeed fursad siino tartanka sanadkan waxaa kaloo ayadan qaybkeeda daani looan sheegin inaan fursad ka siino ganacsatada soomaaliyeed marxalad kasta ay ku sugeen ha aadaan kuwa levelka sare iyo ha aadaan kuwa levelka yaryar meeshaasi ku ganacsaneen waxaan fursad u siina marka annagoo isugu yeernay dhammaan shirkadaha waaweyn ee bangiyada iyo isgaarsiinta waxaan ka codsanay inaan usoo bandhignay fursad aan u arkin opportunity inay maalgashtaan cayaaraha soo socda dowlad goboleedyadana aan khidmad meeshaas laga qaado khidmadaasu ayagu qaataan inta ay ka ceshanayaan waxa ay ku maalgeliyeen si wanaag shirkadihii aan u bandhignay waaweynaa waxay toole waa u arki waayeen fursaddan soo bandhigeen ahayd in meeshu income kasoo laabanayo ma aaminsaneen waxaa markaasi si geesinimo leh aan halkan ka bogaadina geesinimo leh ku qaatay shirkad dhalinyaro soomaaliyeed la yihahdo the Lord Interior Factor oo ay shirkad aan ka shaqeysa howlaha dhismada ayagaa ku qanceen fikraddii aan wadnay nagu yidhahdeen annagaa qaadanayno haddaan sida ay tahay ee uga soo baxdan ahlan wasahlan oo waxaan intaan keeno wixii kale waxaan kusoo celinaynaa garoonka haddaynan kasoo bixinna waxaan maalgashana qarankeena saasaan shirkadaas ku maalgashatay siinay agabka tigidka haddaad aragteen haddii kale dadka tigidka jartay ma soo bixin akoon wasaaradna wax kuma dhicinin akoon xiriirna wax kuma dhicinin shirkada lahayd deynta maalgashatay garoonka ayaa waxay heshiis oo sifa sharcan ugu sameynay ku haysatay in ayadu marka hore deynteeda ceshato marka wixii tigida iyo xayeysiin ka yimaada meeshaasba waxay ku laabanaysay shirkadda runtii filashada siday ahaydna ama aan filanayn inay usoo baxdana uma soo bixin waxaan isleeyahay wacyigelinta oo aada u hosiisay iyo dadkoo aada ay ugu adkeed howl cusub ugub ah in mar qura hadda in la bilaabo hadda laga faa'iida inaysan jiri karin ama ganacsi hadda in la bilaabo hadda laga faa'iida aysan jiri karin annagoo taas aaminsanaa mar walba waxaan sameynayna marka sida macquulka oo suuragalka ah inta badan marka dadka tigidhada goosanaa waxay ahaan laba qolo qolada kasoo goosata online-ka ama qolada xilliga hore timaada tigidhada goosata subaxii inta ugu horeysa aroorta intaan report ku arkaynay 10 subaxnimo ama 8 hadba ciyaaraha markay aada u kulul yihiin ilaa iyo 12 duhurnimo wixii ka dambeeyay dhalinyaro waxaa imaanaysay kubaddana jecel dhaqaalana haysanin raxan u socdo haddaad meesha tiraahdo istaag aada istaajisana ka shaqeynaya inay dhagax tuuraan dadka rabishaan waxaan marka doorbidaynay mar waliba annaga inta shirkadda mar walba ay nagu soo celinaysa commenti lahayd dhalinyaradan see yeelnaa raadii amnigu wax kamayn laayihiin kan anigu marka waxaan mar walba dhahay dhaqaalo waa la helaa wax kastoo deyntiin haddii gudmi weyso annagaa wasaarad ahaan kafaalad qaadna idin siinayno yaa la dhibaateynin dadka waa la iska soo fasoco markii la gaaro marka kooda duhurnimo intu markii xiliyadaas la gaaro dhalinyaro waxay imaanaysa raxan u socda aan tigid iibsanaynin fooda ah carqalada waxay ahayd garoonka la soo soo deyna marka garoonka marka dhalinyaradas loo soo deeyo ayagoo hira hal mar soo galaan 10 kun 5 kun soo galaan waa dareemi kartaa lacag laga qaadiyo laba option aan furnayd in shirkaddu ay xaq u leedahay tiraahdo qof aan lacag dhiibin ma galaayo hay-adaha amniga tiraahdo iga celi hay-adihii amniga dadku intay isku dhacaas waxaa ka dhalan kara khasaare kale ama dadku waxyeelo soo gaar saas darteed anagoo ka baaqsanayna ayaan shirkadda waxaan ku dhageynay mar waliba
inta possible aad tigid iibsanaysa soo daaya intaan iibsanaynin marka horta saasay wax ku socdeen marka dhaqaalaha waxay aadayeen shirkadaas waxa ka yimaadeen wax qoonda cado oo waxay markii hore intaan koobka la bilaabin aan asteynay haddaan kuu sheego percentageska sida loo kala qaado tusaale dhaqaalaha tigidhada kasoo gala 40% waxaan ku celinaynaa ama heshiiska ahaa oo kooxaha dheelaya markaas ciyaarto ayaga ay ka timid 40% markastaba wadankana waa u fiican yahay 25 shirkadda ayadoo maalgashatay ayaa maxay toole si installment paymentgeeda ceshanaysay boqolkiiba 30 waxaan ku maareynaynay maxay toole waxyaalaha baahiyaha ay u baahan yihiin amniga duruufaadka amniga looga baahan yahay hadday ahaan lahayd waxyaalaha ay u baahnayeen duruufaadka sida biyahooda iyo qorax joogooda ayaan ku maareynay boqolkiiba 5 waxaa lagu bixinayay ayadana lagu maareynayay dhalinyaro waxaa jiray si volunteer ugu shaqeynayay ka kala socday wasaaradda qaybaha kala duwan volunteer waxaa kaloo jiray shaqaale ku meel gaar ah mushaar ahayn oo si volunteer ku shaqeynaya waxaa kaloo jiray dhalinyaro jaamacadaha oo especially jaamacadda ummadda ka yimid ku shaqeynaya hab protocol dadka kala hagayay kala fariisinaya meelaha ay leeyihiin u kala tilmaamayay dhalinyaradaas marka volunteer ku shaqeynayay waxaan u qoondayna 5% runtii dakhliga soo gala markii loogu dhifto percentagekoodana waxa ay ku shaqeynayeen ma dhamo laakiin dhalinyaradaas mar walba waxay ahayn dad si volunteer ah qarankooda inay ugu shaqeeyaan go-aansada marka dhaqaaluhu wuxuu ahaa dhaqaale sidaas u qoondaysan 1% kuma soo aadin xiriirka 1% kuma soo aadin wasaaradda markastaba iska fiican in la ciyaaro oo dhalinyarada lagu madadaaliyo tilmaamo lacag waxay tahay arrintaas dhaqaalaha la xiriirto uu ka dhiwaajiyey rugcada sunni wuxuu yiri dada tigidha soo goosto ma gelayno ayadoona culayska u weyn waxay ahayd hadday dadku meesha soo galay arkayeen aniga wasiirkan waxaan ka shaqeynaa taagnaa in dhalinyaradaas tigidka soo iibsada xuquuqdooda ay helaan runtii tartan cusub u ahaa xaaladaas waa ku cusbeed oo in income generation dhaqaale in laga sameeyo waa cusbeed waxaa dhicaysa marka inta badan rag saaxiibo ahoo xildhibaan ah ama mas-uuliyiin ahoo agaasimayaal guddoomiyaal degma looma dhan waliba ee hay-adaha dowladda ay uga jireen xataa saraakiisha qofkii wuxuu sameyna isagiyaa wuxuu ku socdaa si aan lacag ma soo bixinayo id card dowladciidamadii iyo darajooyin inta kusoo dardaro wuxuu kusoo dardaraa dhalinyartii barticoolkeed wuxuu fariisanaa kursi uu leeyahay qof muwaadin ama dhalinyaraha online wax kasoo goosta waxay noqonaysaa marka meeshaas xoogaa carqabad inay ka dhacdo waxaasa dhibka keenay inta badan marka waxaan ku dadaalaynay inaan maanta o dhan kicino marka intuu tartanka socday dhalinyaro badan ama saaxiibo badan oo hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwana ayaan isku wajaxmaaneynay colaad noo qaadayay dhahayay inaan ayaga bartilmaamaysana arka laakiin ma ahene waxaan difaacayna xuquuqda dhalinyarada intaan karna waan difaacnay sidaas si lamid ah waxaa haddana jirtay tigidhadu maanta qofkeenan u suuro gelin waxaa jirtay meel uu shirkadda uga andacoon karay ama u dirsan karay dadka special VIP soo goosta next waxaa loo wareejinaya waxaa dhacday marar aan